wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland Bosmire Maxamed ayaa maanta si rasmi ah magaalada Caynaba uga daafuray tartanka ay wasaaraddiisu wado ee isdhexgalka dhalinyarada ay soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha Somaliland. Koobkani oo ka furmay garoonka Ibrahim Macalin Stadium waxaa ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan maamulka gobolka Saraarka degmada Caynaba. Ugu horreynna halkaasi waxaa ka hadlay isuduwaha wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha ee gobolka Saraar Xuseen Axmed Cawad. waxaan farxad weyn noo ah maanta mudane wasiir inaad noo furto tartankee aan ugu magac darnay isdhexgalka iyo dhiirigelinta dhalinyarada ee Saraarka oo runtii ah kana mid ah tartanadii aad dalka ka qabanayseen. tartanka waxaa ka qayb gali doona mudane wasiir 8 kooxood oo man way ciyaari doona 14 casha meelaha soo socon doona. runtii wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha siyaasadda cusub la yimi oo ku hagay wasaaradda aad iyo aad baan ugu faraxsanahay haddana noo isuduwayaasha iyo dhalinyaradaba. marka waxaad arkaysaa in ciyaarihii hore aad loo dhalaalsanaa in ambaqaad fiican ka soo muuqdo anagana rajo fiican baynu dhiirigelin iyo dhalinyarada waayo anagu ciyaar aad baan u jecelahay ciyaar waxay abuureen isdhexgal caafimaad iyo horumar intaana kusimihii duqa ku hadlaya waxaan leeyahay ku soo dhawaada gobolkii Saraar gaar ahaan degmada Caynaba wasiirsa la sheegay ee wada aragtaa dhalinyaradi wadanadii xisbiga soo halgantay ee codkii ugu fara badnaa gobolka laga qaatay way galabtana maadaama aan taaganahay xaruntii ciyaaraha kubadda cagta ee lagu furayay wasiir aad iyo aad baan ku soo dhaweyn. ugu dambeyntii halkaasi waxaa ka hadlay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland Bosmire Maxamed iyo mas'uuliyiin inaan maanta ka soo qayb galno furitaankan kooxaha heerka koobaad Caynaba jeeda. maanta sharaf noo ah in garoonkan isugu nimaadno ku yaala magaalada Caynaba ee gobolka Saraar oo laga qaban doono tartan kubadda cagta ah. tartankaas oo ay ku kulmi doonaan kooxaha gobolka uu ku leeyahay xusbiga waa gobolada xusbigu ku dhaato sidii waa ahaanaysaa baarlamaanadii wixii ka soo socdaan sidii madaxweynuhu iyo xusbigiisu ku ballan qaadeen waanu wada fulinaynaa dhammaantood hadday garoonka tahay iyo hadday hawlo kale tahay. aad iyo aad baan idin wada salaamayaa ciyaar wanaagsan baanu idin rajaynaynaa. ciyaartuna waa un isbarasho inaad isku qabsataanna maaha si wanaagsan inaad ciyaartaan sanadka cusubna macaati goboladaynu qabanaynaa. labada kooxood ee maanta tartankani lagu furay ayaa waxa iyagu soo bandhigeen ciyaar aad u qurux badan. ciyaartani oo xiisaheeda lahayd waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland Bosmire Maxamed iyo mas'uuliyiinta gobolka kuwa degmada Caynaba iyo dhammaanba taageerayaasha labadaasi kooxood. وعلي آدم درد علي تاني ورركة تلفزيون كون كيبل مقالة عينبا حرونتا قبل كسرار.